wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland oo weheliya agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa kormeeray suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa kaasi oo 5 maalmood ka hor uu dabhaleelay isla markaasina uu gabi ahaanba shuf beelay suuqaasi. wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ayaa ahayd iyadu wasaaradda kaliya ee muddadaasi ku hawlanayd la tacaalidda dhanka caafimaadka arrimaha la xidhiidha ee xaaladda suuqa Waaheen. waxaana shaqaalaha gurmadka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ay ka gurmanayeen xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee koobaad ee ku taala bartamaha suuqa magaalada Hargeysa una dhoweyd suuqa Waaheen. wasiirka iyo agaasimaha guud ayaa kormeerka kadib warbaahinta la hadlay waxaanay ka warrameen waxyaabaha ay indhahooda ku arkeen iyo ka wasaarad ahaan sida ay diyaarka ugu yihiin in ay barbar istaagaan in aan wax dhimashay aanu halkan ka dhicin laakiin waxa jiray dhaawacyo ilaa 60 oo dad fudfudud ah oo dhammaantood laga hawlgalay oo la daaweeyay imikana tiimamkii sidii ayay diyaar u yihiin waxaanay diyaar u yihiin xilliyada la bilaabayo ololaha nadiifinta meesha wixii hawle ka soo baxa inay wasaaraddu qaybteeda ka qaadato oo loo diyaariyo tiimam degdeg u hawlgala oo hawsha diyaar u ahaada waayo waxa dhici kara xaalado caafimaad oo ka soo bixi kara xilliyada hawsha la gelayo waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo gobolka Maroodijeex isuduwaha iyo tiimkiisa iyo cusbitaalka weyn ee Hargeysa sidii runtii ay uga hawlgaleen iyo dadka ambalaasyada wadaaba sidii ay masiibadii uga hawlgaleen oo runtii wasaaradda caafimaadku ay ahayd wasaaradihii ugu horeeyay ee ka hawlgala ee isla markiiba marka dabdamiska dadkii raacayay ee la socday ee dadka dhaawaca qaadayay ee ambalaaska saarayay ee daaweynayay ee front line-ka ku jiray sidii ayaan runtii aan front line-ka ugu jiraynaa ilaa iyo ay hawshaasi dhamaato waxaanu samaynay tiimam si degdeg ah u hawlgala si degdegana u guurguuri kara iyo xarun waxyaalaha yaryar lagu sii daaweeyo oo aanu ka dhiganay MCH-kii centralka ee Dr. Khalid inuu noqdo halka runtii baahiyaadka yaryar ee degdega ee lagu maareeyo ama lagu daaweeyo inta aan loo gudbin cusbitaalka weyn waxaan kaloon dadweynaha u gudbinayaa in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay diyaar u tahay marka hawlaheedii kale laga reebo inay hawsha imiga soo socotana qaybteeda ka qaadato oo ay u diyaar garowday oo aanu diyaar u nahay oo tiimamkii iyo ambalaansiyadii iyo dadkii ka hawlgeli laaba ay diyaar yihiin wasaaradda caafimaadku iyo shaqaalaheedu mar walba heegan waxay u yihiin xaalad kasta oo caafimaad oo timaada inay u taagnaadaan iyagoo aan waqti lahayn ee waqti walba taagan waxaanu dadweynaha la socodsiinaynaa wejigan cusub ee ah in la qashin qaado oo wixii burbur ahaa laga guro suuqii oo laga nadiifiyo waxaa iman kara khataro lafteeda ayaa iman karta dadka waxaa laga yaabaa in dhul weli iska sii nool ay jiri karaan oo ay gubasha iman karto in wax mudi karaan in wax qaniini karaan in meelo maxaan ku dhahdaayay jilicsane ay soo dumi karaan iyadoo cusbitalkii guud uu ku dhow yahay oo aan wax badan inoo jirin si uu cusbitalku culaysku uga fududaado ama adeeg degdega loo helo halkan xaruntan dhexe ee tooska uga soo horjeeda suuqii gubtay waxaa diyaar ku ah shaqaale wasaaradda caafimaadka ah gaadiidkoodii dawadii iyo agabkii lagaga shaqayn lahaa dadka ay meesha wax ku soo gaadhaan wixii culus kolleyba waxay tegayaan cusbitalkay tegayaan haddiise loo baahdo adeeg lagu gaadhsiiyo cusbitalka lagu gaadhsiiyo sida matalan qof naqasku hayo kale inay halkan laga helo ayaanu ugu talagalnay waxaanu